Sheekh Xuseen Cali Jabuuti badanaa waxa uu Muqdisho yimaadaa xilliga la gaaro kulanka weyn oo ay culimmada tabliiqu ay isugu yimaadaan. Kulankaasi ma lahan jadwal la sii qorsheeyay oo albaabka masjidka lagu soo dhejiyay sida ay sameeyaan culimmada casriga ee qurbaha, ama xitaa ma jiro ogeysiis idaacadaha laga sii daayo. Mana jirto meel aad ka ogaan kartid in kulanka uu dhici rabo waanan masaajidda ka ahayn. Culimmada kulanku laabtoobyo ma wataan, hoteelo loo sii kireeyeyna ma jiraan oo masaajidka dhexdiisa ayay cibaadada kula dhafraan xerta inteeda kale. Haddii wax waardiya ay jiri karaanna waa labada nin ee albaabka masjidka ulaha dhaadheer la taagan ee ilaalinaya in gelidda iyo bixidda masjidka uusan buuq ka dhalanin. Dhaqan hore oo qofka dareensiinaya sida ay diintu dadka walaalo ugu dhigtay ayaa masjidka ka dhex jira, isaga oo dhoola caddeynaya. Dhalinyarada aad xaafadaha magaalada ku taqaanay oo labiskii iyo tintii soo qurxistay ayaa masjidka ku arkaysa. Markaa dhalinyaradaas xaafadii ula laabato, lagama yaabo in midkood uu kaaga sheekeeyo ciyaarihii iyo adduunyadii kale oo maalmahaas dhanka cibaadada ay u bataan. Waxaa jira in qaybaha masjidka lagu kulmayo lambaro loo kala yeelo oo sidaas ay ku kala degaan xerta maalmahaas gobolada ugu imaanaya kulan weynaha. Markuu kulan ka furmo ma ogaan kartid shiiqa xiga ee khudbeyn doona. Waxa sidaas loo sameynayana waa isduldhig tawaaduc iyo in kulanka la weyneeyo waanan shakhsi gaara la weyneynin. Masjidka Al-Hidaaya oo magaalada Muqdisho gediga ugu xageeya ee degmada Hilwa xaafadeeda Waxar Cadde ku yaala ayuu kulanku ka dhacaa. Waa meesha Muqdisho ay dadka ugu badan ee arrinta diinta la xiriirta ka tashanaya ay ku kulmaan. Sheekh Xuseen ayay dadka badankoodu hadal hayaan. Dadka qaar ayaa dhaha Sheekh Xuseen tabliiq waa kan ugu fasaxaada iyo balaaqada wanaagsan ee marka uu khudbeynayo inta masjidku buux dhaafo oo ay dadku istaaga dibadda ugu dhageystaan khudbadihiisa. badanaa ma lahan ciwaano. Hadduu kulanku gala furmo, markaas waxay badan tahay in salaada maqrib kadib uu mikrofoonka qabsado. Towxiidka ayuu aad uga hadlaa iyo qisooyinka xoojinaya adduunyada iyo hantida loo kala ordaya ayuu dadka tusaa inay gacanta Rabbi ay ku jirto. Qanaacada iyo in nimcooyinka laga mahad celiyo ayuu ku dheeraadaa. Kulankii ugu dambeeyay wuxuu ka hadlay cudurka koronaha oo uu sheegay in qaababka looga hortagi karo oo dhan ay diinta noo sheegtay. Wuxuu yidhi, nebigii joogay xilligii awrta iyo fardaha ayaa inoogu warramay badbaadada nafteenna adduun iyo aakhiraba. Kulanka oo soconaya 3 maalmood ayaa maalinta u dambeysa subaxeeda waxaa lagu soo xirtaa duco ay xertu inta badan jecel yihiin in aysan ka baaqanin. Waxaa badanaa ay isku booriyaan in subaxa ducada lasoo xaadiro. Markay ducadu dhammaato, waxaa xertii loo kala diraa gobolada dalka iyo qaar xitaa wadamada deriska la ah Soomaaliya, iyada oo loo eegayo qofka inta maalin ee uu qortay si uu diinta ugu shaqeeyo. Xerta isqorto looma ogola taleefanada waaweyn ee qadka laga galo, waxaana sidaas ugu bilaabanaya gudashada xil weyn oo u baahan in loo dhabar adeego. Adduunyada ku qanac inta aad ku haysato, balse cibaadada ha ku qancin inta aad haysato. Sheekh Xuseen waxaa maqaalkan aad ku dheer isla markaana quruxda badan boggiisa Facebook ku qoray Cabdirasaaq Xasan Jidhi.